maalin dhaweyd laba nin oo Soomaali oo leeyahay waa professoro magacyadooda taqriiban waan garanayaa iyo wajigooda laakiin la sheego muhiim ah meel bay wada fadhiyaan social media la soo gali mid baa wuxuu leeyahay diin ma ku dhaqmaynaa anigu I will say no diin ma ku dhaqmaynaa anigu I will say no haddii la isweydiiyo buu shariicada islaamka ma ku dhaqanaa haddaan Soomaalina wuxuu yidhi I will say no I will say no waa professor Soomaali ah oo Mareykan wax soo baray waa shariicada ma ku dhaqanaa Soomaaliya ma ku dhaqnaa haddii la yiraahdo anigu waxaan dhihi buuri maya midkii ka dambeeyaba dibi dhalo ka dar waa midkii la fadhiyay baa wuxuu yidhi very sensitive question diinta ku dhaqanaa macnaha mugta waxaan ku raacsanahay aniga saaxiibkay marka diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo anigu horta saaxiibkay waan ku waafaqsanahay buu hadalkiisaas sababtana wuxuu yidhi tanaaba ka sii daran wuxuu yidhi naga aqli badan Mareykan ayaa kala sooceen diinta iyo state there's a reason ay u kala sooceen it's not joke ma naga aqli badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga waaya aragsan yihiin xireen baashan hala kala sooco Mareykan baa kala saaray buu yidhi diinta iyo nolosha Mareykanna waa naga aqoon badan yihiin obvious saas u hadlaya waa professor waa naga aqoon badan yihiin waa naga waaya aragsan yihiin waa naga xoog badan yihiin maadaama Mareykan uu diintii kala saaray iyo baashi asagaynu kaga daynaynaa saas daradeed saaxiibkay waan ku waafaqsanahay waxaan sadhihi lahaa buu yidhi laakiin waxaan qabaa constitutionka aan qaadanayn inuusan diinta ku xadgudbin kelimadaasi waa kelimo shaydaan waay caamada lagu siraa shariicada waxaan ka hor imaanaynin aynu aan dib u geysanin kuwa professoriintii ay gaala soo tababaratay laga soo shaqeeyay ee 40 sano la soo tababaraya Soomaalida aha warkoodu kaas waa maxaa la doonayaa ummadani inay sanka uga tollaato cadaan iyo reer galbeed gumaysi aan danaheeda ka shaqeyneen wixii ay ku xoogaysan lahaydna laga ilaaliyo